gudoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka Soomaaliland Cabdilqaadir Imaan Warsamo Weheliyo afayeenka guddiga doorashooyinka Soomaaliland Saciid Cali Muuse ayaa warbaahinta u sheegay wararkii ugu dambeeyay ee la xiriira arrimaha doorashooyinka waxaana gudoomiyuhu tilmaamay in gabi ahaanba ay soo xaroodeen sanaaduuqdii kala duwan 1642 gooboodba ku soo hoydeen degmooyinkii ay markii hore ka baxeen si nabadgelyo oo aan wax isdhimin ama wax qalad iman ama baabuur ka jabin ama aan maxayday waxba ka hadhin ama roob qabsan ama wax ka hor yimi ma jiro dhammaan 1600 ba iyo 42 way soo gaadheen degmooyinkii ay markii hore ka baxeen waad ogtiinoo waxaanu leenahay 22 degmo doorasho 22 maanta way shaqeynayaan subaxana way bilaabeen inay tiradii bilaabaan sanaaduuqdii la furo mar labaad la bilaabo waayo waa la soo tiriyay oo goobaha waa lagu soo tiriyay si aynu u aragno maxayday ama aynu uga war hayno waxaynu marnaa marxalado ayaynu marinaa tirada marxaladahaas oo ah in waa masiirkii qaranka ku jira in taxadar oo markasta ay marxaladahaas marxaladba marxalad saxdo goobtii waa laga soo saxay gudoomiyihii goobtu wuu soo seexay maraaqibiintii ama wakiiladii xisbiyada u joogay way soo saxeexeen intooda badan haddii cabasho jirtana wuxuu saxeexayaa wakiilka xisbiga cabashadii foomka cabashadiina wuu soo raacay iyagoo wada jiray soo baxeen baabuurkii markii hore qaaday baana soo qaaday haddana waxay yimaadeen degmadii xalay si nabadaana loo wada yimi si aan idiin sheegayo tiradii way bilaabantay marka laga reebo degmadan Hargeysa oo aad ogtiin degmada Hargeysa waa degmo baaxad weyn leh marka iyada halkay nagu xigtaan ayaanu xalay ku soo wada xareynay markay ku soo dhamaadeen maadaama ay badan yihiin shaqaaluhuna soo jeeday shaqaalaha degmada dabadiisa ka yimi ama banaankiisa ka yimina ay dadaalan yihiin waxaanu maxayde markaan ka xareynay ugu yara tala galnay inay gaab yar soo seexdaan markay soo seexdaan galabta iyadana la bilaabo weeye goobta muraaqib baa u jooga xisbiga wuu qoranayaa laakiin ma garan karo totalka gobolka iyo degmada midna lama garan karo marka haddii laga sii hor dhaco waatan aan idin leeyahay war hanaga dheeraynina war ummaddu yaanay naga dheeraynin waxaadaan ha ku ridina rajadeenu lahayn rajadu yaanay naga baabi'in haddaad naga dheeraysaan rajadu way baaba'aysaa oo imaka markaa xisbi uu damaashaad sameeyo qalad baa ku dhacaya inta ay wax ka weydiisay inay jiraan dad ka tirsan xisbiyada qaranka Soomaaliland oo loo qabtay khalkhalgelin dhinaca doorashooyinka waxaanu gudoomiyuhu kaga jawaabay arintaasi inuu ilaalinayna marka hore amnigu waa koow sanadii sheegayna wararka naga soo baxayana in la ilaaliyo oo siday u soo baxeen ama nooga soo baxayaan loo tabiyo taasuna waa talabaad way dhici karaan inay meelaha qaarkood xalay waad la socoteen oo doorashadii baynu ku jirnay هذا يقول مرة هو قدام بيجي هبني ما كان قطنا وحوال يسكت ده بالعادة بيرنا هاي مرة ولا جاي بدأ أرين أمني إنه وحود عن لكن وحن كل شيء جايون سيد نفيل إنه يسيودو ما يود عنده رشد إنه شلي سيقروح بدن وأمنية ويسكت ده عن وشريمبا يسكت ده عن وشريمبا أيه ود عضي taasna waa mid Ilaahay inuu ugu mahadnaqayno wax maxayday cilada oo jirto ama dhibaato aan ma ogin waxaanu idin sheegaynaa in doorashadeeni idinkuna marxaati ka tihiin in doorashadii si qurux badan ugu dhacday cid xidhan ma ogin anagu ugu dambeyntii guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa sheegay in maalmo qaadan doonto ku dhawaaqida natiijada doorashooyinka Soomaaliland waxaanu sheegnay in shalay markii ay dhamaatay codayntii maanta waa maalintii koobaad waxaanu idin sheegnay in ay qaadan doonto 5 ilaa 6 maalmood waxaanu idin yiri ma 16 noqon doontaa 17
18 intaasoo dhammi waxay noqon karaan dee maalmo suurtagal ay tahay in natiijada lagu dhawaaqo laakiin wax walba waxay ku xidhan yihiin habka ay u socoto oo tirintu ay u dhamaato haddii cabashooyin jiraanna cabashooyinku dib bay inoo dhigayaan taas horena waa idinku sheegnay Ismaan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa